Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan halkan ka salaamayo bahweynta groupka Gila News. Waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamij waayahan dhan aad iyo aad u qabsaday social mediaha iyo caalamka oo idil. gaar ahaan waxaan barnaamijkan usoo gudbinaynaa dhalinta Soomaaliyeed adduunka meel walba ay joogaan. barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay timaha oo muxuu ahaay qofka ninka dhalinyarada ah aad iyo aad cabasho uga keensadeen oo 5% ma dhahnaa mase 10% aan dhahnaa ummadda dhalinyarada Soomaaliyeed markay isugu imaadaan 5 or 10% labo ama muxuu ahaay mid ayaa muxuu ahaay arrintan ka cabaadayo timihii oo gurmaayo qofkii oo caafimaad qabo. taas oo wax dhaqaatiir ah ama ka hortag loo waayay, taas oo xigasho fara badan iyo aan ku sameynay tusaale fara badan iyo isku day fara badan. tani aad arkaysaan waa basal cad weeye. run ahaantii basasha wax badan bay muxuu ahaay noo tartaa, waanu ognahay oo muxuu ahaay laga yaabo inaan 3 waqti maalinkii inaan raashin ku darsano. haddana saas oo tahay baaritaan dheer markii la sameeyay waxaa soo baxday in basasha naftirkeeda ay daawo u tahay timaha koritaankiisa iyo haddii ay muxuu ahaay nafaqo u baahdaanba inay nafaqo u noqoto. waa ujeedaan hadda tan waa basashii. waxaan soo qabanaynaa bahalkii lagu shiidayay juuska, weliba asagii oo muxuu ahaay weyn oo mid yar maana soo qaadanin, mid weyn si aan inkugu tusno inkugu faahfaahino. isagaan ku shubeynaa. hadda waxaan jarjarnay waa xabad basal ah. waan shiidi doonaa. markii aan shiidno kadib waa idin soo gudbin doonaa wixii meesha kasoo baxo. waxaa kasoo bixi doono dhacaankaasoo siyaabo fara badan loo isticmaalo, isagoo lagu daraayo saliid iyo asagii oo qalalan oo waxba aan lagu dari doonin oo basal keligeeda ay tahay. waad aragtaan meeshaan. bismillah. run ahaantii waa markii ugu horeysay oo noloshayda aan wax shiido. haddii tusaalaha ama uu iga yaro xumaado ha la iga raalli ahaado. bismillah. waan ku celcelin doonaa intii ay ka shiidmayso. waan sii wadi doonaa videogan. intaani wixii ka dambeeyay waan la sii socodsiin doonaa. xogaa waxaa jiro cilad farsamo, marka wixii soo cusboonaado waan idin soo gudbin doonaa programkaasi si yar insha Allah. marka waa
saasa insha allah nagula socon doontaan.